aqoon-yahan Axmed Cabdi Jaamac oo kamid ah aqoon-yahaniinta ummadda Soomaaliyeed in ka badan ku maqnaa dalka dabadiisa haatan kamid ah waxgaradka ku sugan degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa fariin diray xildhibaanada Soomaaliyeed ee 15 May dooran doona madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed isagoona kula dardaarmay inay doortaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogaan dal iyo dibad dhalinyaro iyo waayeel rag iyo dumar waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ee sharafta leh. Salaanka bacdi maanta oo ay bishu tahay 14 bishii sanaad 2022 oo aan joogo degmada Xudun waxaan halkan doonayaa inaan kala hadlo oo aan war saxaafadeed aan uga gudbiyo ujeedadayda dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo maamulka dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah xildhibaanada ciidamada aan u gudbiyo wixii talo iyo tusaale aan hayo ee aqligayga yar Ilaahay siiyay aan ka helay. dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliyey maanta halka aynu taagannahay waa ogtiin intii uu dawladda hayay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha maanta halkii uu inaga soo dhaqaajiyay waad ogtiin Ilaahay baa wax qadara oo qadarta Ilaah baa keena calafkana Ilaah baa bixiya maalin bana Soomaalidu waxay ku maamahdaa awr baa dhaansha waynu ognahay 30 sano ee burburkii ka dambeeyay dhibaatooyinkayna soo qabsaday madaxdii soo xukumaysayna waanu ognahay waxa inoo soo qabteen iyo waxayna tareen iyo waxa inoo dhimeenba taariikhday ku qoran tahay muddadii uu hayay Cabdilaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha maanta xilka haya waynu ognahay heerkaynu gaadhnay anigu waxaan ahaa 18 sano ee u dambeeyay qurba joog intii horena dalkan joogay nin mutacallima oo xoogaal ah oo siyaasadihii dawladda Soomaaliya ilaa burburkii taaka dalka ula socdayna waan ogahay baan ahaa waxaan idin leeyahay maanta halkaynu taaganahay waa heer maanta aad iyo aad u wanaagsan haday tahay dibadda siyaasadda dibadda iyo haday tahay gudahaba haddii Soomaali uu ninkaasi ka badbaadi lahaana waxaan aaminsanahay heerka sareeyay inay gaadh lahayd waxaan maanta idinku la talinayaa idin leeyahay maanta waxaynu u baahannahay nin cusub uma baahnin nin hamuuntiisa qaba uma baahnin nin baahidiisa qaba oo doonaya inuu wax bislaysto uma baahnin maanta waxaynu u baahannahay ninkii halkaas soo gaarsiiyay inuu intaynoo dhimanayna gaarsiiyo insha Allah ta'ala waxaan idinku boorinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed aadna waad uga hadasheen oo warbaahinta iyo miidiyaha waxa aad qabtaan waa ka gudbiseen adduunka iyo dadka adduunka ku nool iyo dadka Soomaaliyeed bana waa arkayay taageeradiinu inay ahayd madaxweynahan maanta inuu dib u soo noqdo ilaahayna waa ka baryeynaa oo ilaahay baynu weydiisanaynaa inta ka bacdi waxaan leeyahay waxaan doonayaa halka inaan kala hadlo oo hadal kooban uga diro hadalkaas oo ah wax tusaaleyn iyo boorin hadalkaas oo ah digniin midif iyo aakhiraba ah xildhibaanada maanta loo doortay inay doorashada ay kala saaraan ummadda Soomaaliyeed xildhibaano way idila hadashay waxa meesha idin keenay idinku isma keenin amarka Ilaahay baa idin keenay waxaadna ogaataan in ay taxaamantiin oo imtixaan meesha la idin keenay waxa aad u timaadeen Ilaahay way idin kala xisaabtamayaa sida aad wax uga qabataan nabigeenu calayhi salaatu salaam wuxuu yiri kullukum raaci wa kullu raa'in mas'uulun 'an ra'iyatihi qof kastaaba waa ilaaliye wuxuuna ilaaliyaa wuxuu ka mas'uul yahay maanta ummadda Soomaaliyeed codkeedii idinka haya waxa ay doonayso inaad u samaysaan oo ku taageertaan baana la idinka baahan yahay waxaad ogaataan waxaan dhageystay miidiyaha dumar rag odayaal guddi haday noo dooran Cabdilaahi Farmaajo habaar baan idin farnabay dileeyay waxaan idin leeyahay u tura naftiina u tura caruurtiina u tura gurigiina u tura ifkiina iyo aakhiradiina u tura u taliya wiilkaaga nin kasta oo barito waxa uu ku noolaan lahaa iyo himilada aad doonayso inuu wiilkaagu higsado u tali reerkaaga hadaad garantiin ma haysida caawa dhimato eedhe dawladdii sii qaadi lahayd ee mas'uul ka noqon lahayd u doora maanta war waa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaan idin leeyahay wuxuu yiri waxa la yiri wiil baa wax rag loogu maamaahay aabihiiso jiifa baa maradu ka duushay baa la yiri waa wiil yar oo socod bartay
odaygiyo baalkii qaawan yahay buu jiiday baa layidhi markaasuu warsaad leedahay aabba waa kuu dheeraynayaa buuri wuxuu yidhi iska jiid hooyada waad ku dheeraynaysaa waxaan idin leeyahay ninka maanta hunguri qiimeeyow ee hunguri wax ku doortow adaa isku dheereeyey waxa aad baabiisay ee aad iibsatay ma aha dalka ma aha dadka Soomaaliyeed waa gurigaaga weey nin kastaaba wuxuu nin kastaaba wuxuu dhitaysto baa ugu jira dhilka caanaha waxaan idin leeyahay oo aan idinku adkaynayaa oo ilaahay hortii aan idin weydiinayaa dadku waxay doonayaan u doora maxamed cabdilaahi farmaajo doonayaan waxaan aad soo dhaweynaya waxaan baleenayaa oo ilaahay uga baryaya ummadda Soomaaliyeed ilaahay oo adigu eegaya ninka maxamed cabdilaahi farmaajo leeyahay madaxweynaha maanta ilaahay noo soo celi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan oo beer ka mid ah beeraha degmada Xudun waxaa shir jaraa'id ku qabtay aqoonyahan Axmed Cabdi Jaamac oo ka mid ah aqoonyahaniinta ka soo laabtay dalka dibadiisa wuxuuna fariin u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada federaalka Soomaaliya dooran doona madaxweynaha la dooran doono 15 May waa anigu ah Maxamed Cawil Kawte degmada Xudun ee gobolka Sool